Iso berpistagi anio Idris Muhammad Ukra iso istagi Ustaz Muhammad Salat Bukhari Siluk Bahar Salam Sigar Ustaz Muhammad Hasan Bukhari Ustaz Hasan Umar Siluk Sigar Islamiyah wa Arde wa Muhammad Idrat Siluk Muhammad Abdullah Mat Hayat Garsi Siluk Muhammad Islamiyah Rahman Muhammad Sa anio Idris Hasan Hamzid dan Isif Sabsan English. Today many people are learning English, but have you ever thought about what is the importance to learn English? First, English help us make new friends and learn about the world. Many people want to have friends from other countries, and learning English makes it easy to talk to them. When we learn English, we can talk to more people, share us, and make our relationship strong. It also helps us learn new things and grow our knowledge. Second, the English context our culture to knowledge to us. We can use English to tell people from other countries about the people of country, like special bliss, food and content for dinners. Many become interested and visit and country. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مرتشرفت قالها ككويه مشايخين يوم معلمين كسكول كوسدع سرع معلوم يوم مامك حقيقة أرض الأمان وعندك السلام يا سلام تنقوق لسان وإلهي سبحانه وتعالى النجريي وفضل بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية آد أيام وهم بلين يا أرضينا تقل الجبسي سكولك ونسوق على دفعة أفراد إن تقل الجبسي إلهي سبحانه وتعالى سورة قليي اللهم هد علينا ليس بحيلتنا ولا بقوتنا. حيلتنا هي قوتنا معها وقدر من الله تعالى إلهي ينقل شكرنا ونقدر إن حفلتنا قيمها بدن ونقبل حددنا وأن كدير جلنا وأن كبر بستاجنا كاسم إلهي سبحانه وتعالى بعد الله معلمين جهدك بدن بحيي يوالدين تاس ayaan ugu mahadinaynaa. Marka bacda alxamdi waxaan iska rabaa ardayday waa u jeedaan waxbarashada halka ay marayso maanta u jeedaan iyo waddanka xaaladda uu taagay asagana waddanku xaalad khatar ku sugan oo maxaa la yiraahdaa oo waxyaabo badan ay iska jiraan aqdaar badan oo iska jiro haddana ardada la rabo in la soo saaro maxaa yeelay dadka tacliin la'aan anfici mayso bulshada haddaan wax loo sheegin oon waxna la barin waxay noqonaysaa bulsho qaribatay ay noqonaysaa. sidaas aageeda waxaa laydinka rabaa inaad samaysaan juhdi badan inaad ku bixisaan aqoonta macallimiintiinana aad adeecdaan awaamirtay idin siinayaan waalidka iyo macallinkana waa inaad adeecdaan awaamirtoodana aad qaadataan markaasaad heer aad gaari doontaa insha allahu tacaala. laakiin haddii waalidkii ama macallinkii laga hor yimaado wax soconaayo ma jiro ardaygaasna wax ma baranayo. marka sidaas darteeda ardayay waxaan idin leeyahay dadaala oo macallimiinta ha laga dambeeyo. macallimiinta waxa maanta lagu dhigaayo waa la socnaa. maanta macallimiinta waxa ay ku sameynayaan ardaydii ayaga maalin habeenkii u taagnaayeen oo waxbarashadooda siday jahli ugu dagaalami lahaayeen ugu taagnaayeen waxyaabaha bacalkooda ay ku sameynayaan waan arkaynaa marqaatiyana ka nahay waxa ishayna aan ku aragnaa ayaa ka badan. marka waxaasoo kale wax laga qiiroodo waaye oo aanan fiicinayn oo aad iyo aad u foolxun. waxaasoo kale arday maaha. ardada waxaa la rabaa in arday nidaamsan oo waalidkiisa macallinkiisa maamulkiisa qiimeeya qof walba qiimeeya oo maanta
معلم هذا قفك ألف كل شيء أما ألف كل بلا معلم كذا نكي واحد قلدن كل شيء أو كوير هذا واحد وقلديه إسكسر هذه الويرة نكاس وإن معلم كذا ويهاي أبو قرطة معلم كذا أبو قدر سوا هذه لوايتاس واحد أرض يصوب حياة مركب معلمين تا وين استيلالنا معلمك ودور مرحلات يولي هاي ما يلا بدر معلم كل ميسا يعني مر دوسي بقرآن كواسو مرتين هير هذا واحد تاجن تاي سكولك درجة دي لغات أيام مريسا مرحلة الأولى مرحلة الثانية مرحلة الثالثة مرحلة الثانية حتى كبعدين مرحلة الثالثة وصعدة مركز هذه مرحلة الثالث وصعدة هذه أبكى بقول نقطة أبقى ولا في عينه إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أن هم هذينا المؤمن كمحايا المؤمن بين الشكر محل هذا مؤمن كوامد مرحية بين الشكر والصبر سيد النبي قال نوشة عليه الصلاة والسلام النبي قال نوشة مؤمن وحود حياة بيري من إلهي سبحانه وتعالى إنه كم ماضيه إنه إلهي سبحانه وتعالى وحو كان وحلاسة وكصبره النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن كمعيري هذه حالة فرحة أما برواقة أو لكلمة إلهي يكشبرنا يا هذه حالة إباطة أو لكلمة وكصبريا سيدنا سبحان النبي عليه الصلاة والسلام قول كيسا تنوحي كمتاي حالة السراء كمتاي حالة فرحة دينوتاي ما أنتو كلا أدام حالة فرحة دينوتاي وين إلهي سبحانه وتعالى إلهي من سوق قرسي نو قدري أنكو شكرنا مرك عين إلهي شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد هذا إلهي كشكر سان إلهي ونزيادنا إلهي ما هذا هذا إلهي ونزيادنا مركينا إلهي هذا ومحل إله داي وحو إلهي رالي كي هاي أنسى من الرب هذه فرحات انت كعبدته منكر ماشي أقصى ميسو خطر فيني ساوت خطر كذا ناس مركز شكرت إلهي سبحانه وتعالى أن بدينه سي إلهي نوب زيادة علم جنب تركيز عليه ماشي أقصى جرسيه أيالا ربع الكشكرس كذب إلهي علم وكوز زيادة إن شاء الله تعالى إلهي علمك وكوز زيادة مركز إن إلهي كشكرينه وإلهي سبحانه وتعالى نمعذ ونسيي واتن أركينه واتن أمي أمفرنا جوب الدجنا هيسنا إلهي سبحانه وتعالى إنكم هذا بعض المسلمين ما تعالوا في الجوب ما هيسان ذا قحوتية ذا عروضته وذا محلي ذا غير أن كشيء ذا دواعية ومسلمين كم دمان تبعت هيسته ذكر إلهي أمبرنا أنك إلهي سبحانه وتعالى برواقة إقامة كان ونسيي إن الإله أم هذا نوايا مركب وايد كبيرية وجزاكم الله خير أنت كسوق بشيء حفلتنا آدم المسيحي ومعلمينا وشائقينا وأرضاء وكمسيحيين أنت إله وسن قدرنا هالقوضة سلامات أيام لنا هاي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى وحبرتان برواخ قارني وحبرتان برواخ قارني بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ugu horeyn waxaan halkan usoo istaagay inaan saddex qodob aan ka hadlo oo kala ah inaan soo jeediyo mahadcelin iyo hambalyeyn iyo dardaaran marka ugu horeyso waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan soo xirinaynaa waan soo gabagabeynaynaa xafladeeni sida quruxda badan noogu bilaabatay saacadda markay ahayd 10 subaxnimo waxaana u mahadcelinayaa guud ahaan martisharaftii ka soo qayb gashay xafladda waalidiinta iyo macallimiinta isugu jira iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa kaamirmaanadii iyo daadiyihii barnaamijkan
quruxda badan sidoo quruxda badan ee noogu waday sidoo kale mahad celinta ugu horeysa mar walbana waxaa iska leh Allah subxaana wa tacaala sida quruxda badan noogu bilaabay inuu ugu dhameeyey waxaan hambalyo u dirayaa fasalka 8aad oo dufcadii afraad ah iyo ardaydii ka qalin jebisay medicalka ama health culumtooda mid ka mid ah diploma nursing halkan ku qaatay ayaan aad baliyanayaa waxaan rajeynayaa cilmiga aad barateen inaad manfacadiisa heshaan waalidka iyo bulshada deegaanka aad wax u barateen iyo dadkiina Soomaaliyeed inaad ku anfacdaan insha Allah dardaarankan waxa waaye oo ardayda aan ku jeedinahay inay juhda iyo dadaalkooda waxbarasho ay sii wadaan ha ahaato ardaydii fasalka 8aad iyo kuwii shahaadooyinka lagu siiyey caafimaadka baranayay waa bilaab waxa ii sheegay maanta xafladeedu halkan aan u dejo waxaa idiin dhiman safar kale oo dheer oo cusub safarka aad ku jirtaan waxbarashada qayb ka mid ah ayaa halkan kusoo ardaydii 8aad waxaa usii dhimaatay secondarygii oo kadib dugsigii dhexe maada ahaan iskool ahaan iyo macallimiin ahaan iyo maxaa la yidhahdaa jadwal ahaanba ka duwan marka waxaan idinkula dardaarmayaa in aad u diyaar garoodaan jadwalkaas ka midka ah safarkiina waxbarashada ee aad sii gelaysaan waxaad ogaataa waxbarashadaada adigay ku anfici doontaa kadib waalidkii kula garab taagnaa bay anfici doontaa kadib bulshadii aad wax u baratay ee Soomaaliyeed ay anfici doontaa kadibna caalamka oo dhan dadweynuhu ku nool ay anfici doontaa waxaan idinka rajeynaa marka oo dardaarankii guud uu yahay inaad waxbarashadiina dadaal sii uujibaartaan dhex ugu tegina intaasoo kusoo gabagabeyna asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu xafladeena intaasay noogu barantahay bilaa